magaalada Burco ayaa waxaa laga helay xabaalo wadareedyo hal meel lagu aasay oo ay soo saareen dadkii dhawaan ku fatahay roobabkii ka da'ay Burco. Lafaha dad gaaraya 40 qof ayay ka soo saareen xaafadda Caqiibo ee Burco sida ay sheegeen xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi iyo gudida xaafadda Caqiibo ee Burco. koobii 30 sano kadib waxay dadkii magaalada Burco maalintii dhowto helay ee dadka xoog gali ay khasaare iyo dhimashada geysteen waxay soo saareen dadkii halkan lagu xasuuqay ee nidaamkii Maxamed Siyaad Barre xasuuqay xaafadda Caqiibo dadkaas waa dad reediya waxa markaa Mariyada dhiigiina aan ku arag wax Ilaahay uga barinay in Ilaahay maaragtay u naxariiso oo janno furdoosa geeyo waliba dhalinyarada dhashay 27 May kadib aan waxba ka ogeyn xasuuqii ka dhacay ee Soomaaliland ee marba calan Soomaaliya gashanaya waxaan leenahay dhalinyarada taariikhdiina dub akhriya oo ka tanaasula dhalinyarada la qalday calanka Soomaaliya xilxinaysa iyo kuwa aan taariikhdii ahayn farmaajo oo ahaa ninkii adeerkii dadka laayay adduunka waxaan u sheegnaa in maaragtay xawaaraadkan soo saarna maanta iyo kuwa ka horeeya kuwa ka dambeeyo in loo baaro dadkii waxaan geystana in maxkamadda loo soo taago magaalada waxyeeleeyay anagoo isla Basriya cagaftu waxay soo saartay meydka faraha badan meydkaas oo mariyihii Carabida oo gashanaa ku duuban yihiin dad tira badanna meesha nooga muuqday iyagana dadka la laayeen Ilaahay waxaan u baryaa in Ilaahay u naxariisto cidii uqubadan gashan Ilaahay ka awaal mariyo. halkan waxa weeyaan xaafadda Caqiibo roobabkii xoog lahaay ka daay waxa ka soo baxay lafo dad bilaadan ah oo fara badan mariyaha dhiig galay la isugu xirxay ku xirnaayeen dadka shicibka mariyadu waa mariyaha wafiinada iyo koorarka iyo funaanadaha iyo waxa isku wada xiran marka dadka badankiisina waxa qaaday lafaha badankoodina waxa qaaday iyo madaxyadii daad. Xabiib Ciga Xasan, Universal TV, magaalada Burco.